dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudow marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoraynayo habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey ee inaad dembi kororsato maaha walidaalika baa caaisha markay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddiiba ilaahay uu haleeshiyo aan ku beegmo habeenkaasi laylatulqadriga maxaan idhaahdaa bay ku tidhi nebigu wuxuu yidhi waxaad tidhaha allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canni ilaahu dembigayga rogni ilaahu icafi waxaad ku ducaysata habeenkaasi ha noqoto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahu cafi bishatan cibaadaadka la sameeyo culammadu waxay yidhaahdaan markaa cibaadooyinkeedu uma dhigmaan xataa cibaadooyinka bilaha kale la samaynayo walidaalika baa maala nebigu wuxuu leeyahy cimrada la cimraysto ramadaan gudaheeda tacdilu xija wa fii bacdi riwaayaat xijatun maci ramadaan inaad soo cimraysataa xaj bay u dhigantaa xagga ajarka marka la eegu nebigu tilmaamaya ama xagga dembi dhaafka ama weynida xaj bay u dhigantaa baa layidhi riwaayaadka qaarkood baa weliba waxaa leeyahy xaj aad nebi maxamed la xajtay xaj oo dhan maaha xaj aad wadaad yar raacday maaha xaj aad nebi maxamed la socotay ayay u dhigantaa haddaba waxaan leenahay ayuha alaxiba bisha tani waa bil uu qofka muslimka ahi training galo waa course uu qofka muslimkii tadriib ku qaato tadriibkaasi kow wuxuu salaynayaa inuu uskaga iskaga maydho gaalnimada iyo dunuubta oo dhammi waa najas waa najaasat alqalb kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun baa ilaahay tilmaamay